caafimaadna siiyay inaga yeelay dad muslimiina insha Allah maanta waxaan u taaganahay carruurtii agoonta ahayd gargaarka agoonta u diiwaan gashneed qaybta carruurta aan dugsiyada aan dhiganin aan nasiib u helin xarunta weyn ee gargaarka agoonta inay wax ka bartaan inaan halkan ku guddoonsiino lacag yar oo lagu talagalnay in ay wax ku bartaan haddii ubadka wax la baro waa iftiin iyo ilays ubadkana u daarmay waalidiintana u daarmay marka qoys walba waxaan siin doonaa lacag yar oo loogu talagalay hooyo inay ubadkeeda wax ku barto xagga dugsiga quraanka iyo xagga macadka insha Allah intaasaan ugu talagalnay marka waan rajeyn doonaa inaan intaan ka sii ziyaadin hadii Ilaahay noo fududeeyo waxaan ka soconnaa gargaarka agoonta hadii insha Allah Ilaahay noo fududeeyo waan bixinayna lacagaha waxaan u yeeri doonaa maamooyinka si noo gudoomaan ubad kasta iyo wixii loogu talagalay loo qoondeeyay ubad kasta waxa loogu talagalay bisha inuu wax ku barto $50 ayaa loogu talagalay ubadkaas ama qoyskaas $50 maadaama uusan dollar shaqeynayna hadda EVC-gana uu muuqanin waxaan ugu talagalnay sidii Soomaaliya in afarta kaga saarno si walaalaha gargaarka agoonta u arkaan maamooyinkii wax soo baxsan halkan loogu duceeyo qoyska ugu horeeya aan u yeerayo waa maamo Farxiyo Sheekh Cali iyo awlaadeeda insha Allah soo dhawaada saan wixii idin guddoonsiin waxaan la joogtaa maama Farxiyo Sheekh Cali waxaan rabnaa inaan insha Allah maamada aan guddoonsiino lacagaha awlaadan ayaa loogu talagalay xagga waxbarashada inaan ka kabno hadii ubadku wax barto isaga mustaqbalkiisa dhisaayo marka lacagtii aan rabnaa inay guddoonto إن شاء الله مام فرحية وأقول أنت رجينا العجاز إن شاء الله جري حسنا بضحاوة يسوقرتي وعطنا قعنت عنكو هاي المية قعنت هاي وحسوا بحصدنا وأخوانا مركا أجري حسنا بدنا الله كسي بدل القرقة وعلوه waxaan u yeeraynaa maamada kale in seen ugu doonto maama Deeqo Maxamuud Cumar iyo awlaadeeda insha Allah soo dhawaada فدوابتي لعجان كوريجيننا إن شاء الله وقرقات أغنت خير الله سيو وأنا سو قارتي waxaa lacagtii ilmaha agoonta loogu soo talagalay gabdhaha muslimiinta oo wada baxsadeen khayr Allah siiyo adduunyo aan qarabo ajir Allah siiyo dhamaantood ayaan insha Allah soo barbaarabti insha Allah maama Makko Ciise ayaan la joogta oo ayna aan rabno insha Allah inaan ku wareejino carruurta waxay wax ku baran lahaayeen lacag yar oo ay walaalaha ururka gargaarka agoonta ay ugu talagaleen inay carruurta wax ku baraan dugsiga quraanka iyo macaayida kale maama maxaa gacanta ku haysaa maxaa sanad guddoonta dhow waxaan gacanta ku hayaa ilmaha yaryariiska oo gargaarta agoonta oo loogu soo gargaaray wixii waxaan ku bari lahay ajir iyo xasanaad inuu Ilaahay ka siiyo oo adduunyo aakhira nimco Ilaahay ugu bishaareeyo si uu soo gargaareen inuu Ilaahay ugu gargaara ugu duceynaya الله تصور بارا إذا كان واحد لبرتشان إن شاء الله مركنا حرنا مع فاضمه إن أنا إذا أنا قدون سينا وحي لو قلت رجلي وأسودي ولا لا جرجار كأجونت على الربا أولادي وحلقوا برا إن شاء الله أنا قدون مامو إن شاء الله براكين ما شاء الله براتكود الله سهل رزاقته هذا واسع الله جدّة والدكود والدي تسيد دود والد جنة الله كورابي مسلم خلنا سودي براتكود الله سهله مهل غساق هذا غير بدن الله هديكو ويكون عبر بعض عبر دار عبادة صوب الله سي براتكود الله سهله نبي محمد الله أقارسي هذا أبو تعاودري الله أقارسي رزق هذا واسع الله كديكو ونكر واحدنا براتكود الله سهل ونكر المصيتين qeybaha dambe asla mareyna maama Luul Cali Maxamed ayaa ugu dambaysa
maamulul soo dhawow intii yarayd ee walaalaha gargaarka agoonta ay kugu tala galeen insha Allah naga gudoon ilaahay subhanahu wa ta'ala ayna ajir badan ha ka siiyo walaalaha gargaarka agoonta sadaqadaas iyo walaalaha ay waxay la bixin insha Allah maamulul ummadda soo dhiibata qaar Allah siiyo ajir iyo xasanaad la soo koobi karan Allah siiyo warta janna waadiga raxmo kuwa ka waraab Allah ka dhigo waxaan ku leeyahay sadaqadan wadiga geer furta Allah uga dhigo miisaanka Allah uga raajiciyo qabriga cariiri waa Allah ugu gudbiyo waasa Allah uga dhigo janna fardoos Allah geey siraadka Allah ku gudbiyo sadaqaday soo dhiibeen amri dheer cibaado suumbo waalidiintooda Allah gaarsiyo may ka soo qaadeen galan gurino gaagaxan Allah uga dhigo aaminta malaa'igtana Allah kulmay muraadaadkooda Allah sahal ummadaas nabi maxamed oo noo gargaar ilaah u gargaar ilaahna u kaalmee irsaaqadooda waasac على وحان جرو meelahan jiran cudurka Allah ka qabto ninka ilmo ka xiran yahay ilmaha Allah u soo fasaxo ninka ilmo la'aan haysa Allah siiyo ninka shaqo la'aan haysa Allah siiyo ninka cudur caafimaad Allah ugu bedelo oo jirano meel jiifo nin walba ummadan isku soo noo gargaarta Allah u gargaaro muraadaadkooda Allah sahlo kaayada hureer Allah ka dhigo sadaqadana sadaqa may ka soo qaadana badalkooda Allah u gudili balad idinka qaar qaba Allah dalka dibadiisa ku sugan dhul gaalo jooga oo mararka qaar dhibaato la kulma xaalada adag ku shaqeeyaan marka ayana maxaad ugu duceynaysan inuu ilaahay wax qaar qabasi oo cadawga ilaahay ka qabto oo gaalada ilaahay dubbo uga rido oo mahay maraan nabiga carar la'aantiis ma uu mara Allah uga dhigo waxay jecel yihiin afarta farood oo suulku lagu laabo Allah uga dhigo yaa ilaahay u gargaar waa noo gargaarin Allah u gargaaro maanta arbaca waaye ilaa idinkiisa rasuulka faligiisa uu banay salawaatullaahi calayh nabiga gacantiisa midigta Allah u galshay ummadaas gaalada in saab Allah ka saaro ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahado dhan u sugnaatay isaga insha Allah kuma hadinayna waxaan guud ahaan ku wargelinaynaa walaalaha gargaarka agoonta in wixii ay noo soo wakiisheen carruurta agoonta loogu talagalay in sida ay tahay aan u dhiibnay waalidiintana dardaaranka ugu dambeeya u direen wuxuu noqon doonaa awlaadda wax lagugu dhiibay waa waxbaris oo kaliya cuntada iyo raashinka kale waa wax adiga gooni ku saaran weeyaan laakiin tan anaga maanta aan dhiibnay waa qaybta waxbaridda ubadka hadii maanta ubadkaaga waxbartid isaga mustaqbalku anfici doona dardaarankeena soo noqon doona insha Allah intaasana jecelnaan ku soo gabagabayno barnaamijka aan ugu talagalnay bil walba inaan ku guddoonsiino lacago aan ugu talagalnay ubadka agoonta in wax lagu baro barnaamijkii gargaarka agoontana qaybintii maanta intaasaan ku gabagabeynayna insha Allah dardaarankeena ugu dambeeyana waa ubadka in wax la baro maamooyinka wax soo baxsadeen badal khayr qaba Allah siiyo ilaahay baan u baryanaa inuu adduunyadana ku wanaajiyo aakhirna uu ku wanaajiyo waxa ay la baxeen ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga yeela mid ay ku nimceystaan ay ku qeyraystaan inagoo isku duubana u duceynayna ilaahay darajaha ugu daro inagoo isku duubana u duceynayna ilaahay darajaha ugu daro raxmad iyo naxariis aan goyna Allah ku siiyo qalbigooda Allah ku nuuriyo khayrka qalbigooda Allah ku nuuriyo khayrka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh